Assalaamu calaykum lama galaay goobo dadkii kale aan dib loo arag muquurtii aan laga soo noqon cabsidu waa dareen ku lamaan abuurta aadanaha waa eray tilmaamaya xaalad khatar ah oo soo food saartay qofka bani aadanka ah waxaa jira goobo halis ah oo dadkii kale aan dib loo arag silsiladda lama galaay ayaynu kaga warranay qaar ka mid a goobahaas maanta waxaynu u jihaysanaynaa dhinaca badda waxaa la sheegaa noolaha marka 10 meelood loo qaybiyo in 9 meelood oo ka mid ah ay badda ku nool yihiin maalin walba waxaa la arkaa xayawaano aan noocooda hore loo arag shaki kuma jiro inay jiraan qaar badan oo kale kuwaas oo uusan aadanuhu weli arag ogow daawade gunta baddu aad ayay u qoto dheer tahay waxaana jira meelo badan oo aan weli la gaadhin doonteennu waxa u shiraacanaysaa dhinacaas sannadku markuu ahaa 2015 badmaax lagu magacaabo Guy Germer oo ku magac dheer Dr. Deep waa 50 jir ku taqusay cudurrada cunaha sanka iyo dhagaha waa nin xiiseeya dabaasha gaar ahaan muquurta dheer ee hoos loo gaaro joog aad uga fog oogada sare ee badda sanadka aan soo sheegnay waxa uu go'aansaday inuu jabiyo rikoodhka adduunka ee muquurta waa rikoodh waqtigaas u xidhnaa badmaaxa reer Masar ee loo yaqaano Axmed Jaabir oo gaadhay joog dhan 190 feet badda hoosteeda waa dherer u dhigma 332 mitir ha yaraysan joogan sababtoo ah guriga aad joogto dhererkiisu waa 3 mitir oo keliya 336 mitir waxay noqon kartaa fooq ka kooban in ka badan 110 biyaano aynu u soo noqonno Dr. Deep qorshihiisu waxa uu ahaa marka hore inuu gaaro 332 mitir si uu u jabiyo rikoodhkii hore ee u xidhnaa badmaaxa reer Masar intaas kadib uu hoos u dego uuna gaaro 400 mitir dhaktarku waxa uu bilaabay inuu doorto meesha uu ku fulin lahaa qorshahan muquurta ah wuxuu doortay goob ku taalla badda Caribbean-ka una dhow jasiiradda US Virgin qeexitaanka jasiiraddu waa dhul xidhan oo afarta dhinac ay biyo ka xigaan runtii biyaha ku hareeraysan jasiiraddan waa biyo nadiif ah oo aad u qurxoon weliba loo dalxiis tago maadaama ay u dhowdahay xariiqda dhulbalaha biyaha jasiiraddan waa kuwa diiran oo dabaasha ku wanaagsan sida aynu wada naqaano marka aad gasho badda tilaabo walba biyuhu way sii badanayaan dhulkuna hoos ayuu fogaanayaa hagaag intaas haddii aynu isla fahanay waxaa jirta meel loo yaqaano gidaarka oo 250 kilomitir u jirta jasiiraddan meesha dhulka tartiib uma fogaano ee hal mar ayaa la waayayaa macnaha waa god dheer oo aan guntiisa weli la gaadhin cabirkiisa waxaa lagu qiyaasaa inuu hoos u qodan yahay 3200 mitir waa meel aan loo ogolayn cid kasta in ay ku dabaalato keliya xirfadlayaasha dabaasha ee caanka ah ama qof haysta shahaado caddaynaysa khibraddiisa dabaasha ayaa loo ogol yahay inuu ku dabaasho aaggan dalxiisayaasha iyo dadka caadiga ah waxaa loo ogol yahay agagaarka xeebta inay ku dabaashaan halkaas ayay ka helaan biyo diiran kalluun qurxoon iyo cawsbadeed cajiib ah oo la moodo kayn ku taalla badda hoosteeda dadka qaar ayaa fadhiista agagaarka meesha loogu magacdaray gidaarka labada lugood ayay la galaan aagga halista ah waxay dhabarka u jeediyaan dhinaca xeebta xaggooda dambena waxaa ka muuqda cawsbadeed la moodo kayn dhirteedu ay faraqa isku hayso sida dad faqaya oo kale halkaas ayayna ku galaan sawirro dhaxalgal ah oo aan quruxdiisa la qiyaasi karin waxaan filayaa daawade inaad la socoto inay jiraan kamerooyin awood u leh inay sawir ka qaadaan ama ay muuqaal ka duubaan biyaha hoostooda geesigu waa ninka meeshan habeen u dabaal tagaa culimada daraaseeya nolosha badaha waxa ay sheegaan in aaggan laga heli karo xayawaano aan hore loo arag waxay sameeyeen tijaabooyin joogto ah mararka qaar waxa ay kamerooyinka ku xidhaan nibiliga ama xayawaanada awoodda u leh inay gaaraan gunta hoose ee badda arrinta ay ka yaabeen ayaa ah in xayawaanadani marka ay yimaadaan goobta isla markaana ay hoos u socdaan masaafo fog ay degdeg uga soo noqonayaan markiiba waxaad mooddaa inay ka soo carareen bahallo waaweyn qaarkood waxa ay soo laabtaan ayaga oo dhiig baxaya oo ay ku taallo qaniyo aad u weyn muxuu ahaa xayawaanka nibiliga barhka goostay talow intee ayuu isna leegyahay waa sababta aqoon-yahanadu ku aamineen in meeshan ay ku sugan yihiin xayawaano halisa oo aad u waaweyn kuwaas oo aan u soo bixin xagga sare ee badda waa xayawaano nibiligu leeyahay kalluun basiid ah oo iska yar haddaba daawade Dr. Deep waxa uu soo diyaarsaday markab wuxuuna soo kaxaystay tiim dhammaystiran oo ka caawiya jabinta rikoodhka muquurta oxygen kamerooyin iyo qalab walba oo ay u baahnaayeen ayay soo qaateen xaaskiisa iyo wiil u dhalay ayaa safarka ku heliya saaxiibkeen waxa uu wataa xadhig xagga hoose lagaga xidhay bir culus oo ay dusheeda ku qoran tahay 400 mitir waxa loogu talagalay in badda lagu sii daayo Dr. Deepna marka uu maquuro uu soo calaamadiyo meesha ay ku qoran tahay 400 mitir dabcan waxa uu wataa qalin wax ku qori kara biyaha hoostooda haddii uu gaaro birta una soo calaamadiyo meesha ay ku qoran tahay 400 mitir wuxuu dunida oo dhan u xidhay rikoodh cusub marka laga hadlayo muquurta waxaa jirta tiro kale oo ku qoran meel dhexe waa 332 mitir tiradani waxay u taagan tahay rikoodhkii hore ugu xidhnaa xeeldheeraha reer Masar marka uu calaamadiyo labadaas meelood qorshuhu waxa uu ahaa inuu dib ugu soo noqdo markabkaas si uu ugu dabaaldego rikoodhka cusub ee uu dhigay
haddaba 15 Agoosto maalin Sabti ayuu digtoorku soo kaxaystay markabkii asxaabtii iyo qalabkii uu diyaarsaday. Saacadu waa 6 subaxnimo. Wuxuu xidhan yahay dharkii dabaasha iyo haamihii oksijiinta. Xadhigii ayaa bedel lagu sii daayay. Gacanta ayuu taagay isagoo tilmaamay inuu diyaar yahay. Sidoo kale wuxuu salaam u taagay xaaskiisa iyo wiilkiisa. Intaas kadib waxa uu bixiyay tilmaam sheegaysa bilowga muquurta. Biyaha ayuu ku degay. Waxaa la socda caawiye uu helinaya inta uu gaarayo gidaarka oo u jira oogada sare ee biyaha masaafo dhan 60 mitir. Mar walba oo hoos loo socdo iftiinku uu sii yaraanayaa ilaa la gaaro mugdi dam ah oo aan isha caadiga ah waxba lagaga arki karin. Waxa ay gaareen calaamadda koowaad. Waxa ku qoran 60 mitir. waa meesha loogu talagalay inuu kaga haro caawiyuhu. Inta uusan ka harin caawiyuhu wuxuu bilaabay timerka si uu xisaabiyo waqtiga muquurta. sababtoo ah oksijiintu waxay leedahay waqti ay ku dhammaanayso. dabcan waxa uu wataa oksijiin ku filan inta uu soo noqonayo, laakiin haddii uu habsaamo uuna dhammaado waqtiga la qorsheeyay waxaa haysata dhibaato, wuxuuna u baahan yahay gargaar degdeg ah. waxa ay qaateen taxaddar dhammaystiran. ku darso xisaabto waxa dhexda lagaga xidhay xadhig si uusan uga fogaan markabka ama loo soo jiido xadhigga haddii uu habsaamo ama la waayo. qorshuhu waxa uu ahaa in calaamadda dhexe ee 332 mitir uu ku gaaro waqti aan ka badnayn 38 daqiiqo oo uuna taabto botan ku yaala saacad gaara oo xidhan yahay, kaas oo saaxiibadii u tuuraya fariin tilmaamaysa inuu gaadhay 332 mitir. saaxiibkeen muquurtiisa ayuu sii watay. waxaa dhammaatay 38 daqiiqo ee calaamadda koowaad, lagamana helin wax fariin ah. waxay is yidhaahdeen waxa qabsatay caqabad habsaamisay. tiimka caawiyuhu ma dhaafi karaan 60 mitir biyaha hoostooda, kumana jiro qof awood u leh inuu muquuro 100 mitir ee qorshaysan. marka laga reebo Dr. Deep, ma haystaan qalab u suuragelinaya inay socdaan cabirka intaas leeg. sidoo kale waqtigu uma ogolaanayo inay caawimo weydiistaan ciidanka ilaalada iyo agaarka heebaha. waxa ay go'aan ku gaareen inay xadhigga soo jiidaan si ay bannaanka ugu soo saaraan. nasiib xumo waxa uu soo baxay xadhigga oo madhan, waxayna garwaaqsadeen inuu dhintay oo aanu noolayn. ma gaarin calaamadii koowaad, mana gaarin calaamadii labaad. saacado badan ayaa ka soo wareegay. baadhitaan badan ayaa la sameeyey, lamana helin xitaa meydkiisa. khubarada qaar ayaa sheegay inay suurtagal tahay inay jiraan wax shabakeeyey oo ku kalifay inuu iska fududeeyo culayska haamaha iyo xadhiggii ku xidhnaa. si uu isaga furfuro waxaa shabakeeyey tuurista haamuhu. waxay gelisay inuu hawala-aan u dhinto. xadhigga uu iska furayna waxa uu ku lumiyey jihada uu markabku ka xigo. lama qiyaasi karo welwelka uu dareemay ilbiriqsyadii u dambeeyey noloshiisa. sidoo kale lama qiyaasi karo sababta uu dhintay. ma hawala-aan ayaa dishay mise xayawaan halis ayaa cunay. Dr. Deep kuma guulaysan inuu kaydka rikoodhka adduunka ee World Guinness Record kaga qayb galo muquurta ugu dheer, balse waxaa la odhan karaa wuxuu xidhay rikoodhka dhimashada meel aan laga helin ehel iyo aadami kale oo u gargaara midna. ugu dambayn waxaynu soo gaarnay dhammaadka muuqaalkeenna maanta. fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato kanaalka, soo dhowow oo subscribe saar, muuqaalkana like ku sharaf. mahadsanid. asalaamu calaykum. lama galaay goobo dadkii galay aan dib loo arag ama naftooda ku waayey. qaybteeda 5aad, jasiiraddii dhimashada. waa jasiirad aad u qurux badan, keliya 32 kilomitir ayay u jirtaa magaalo xeebeedka caanka ah ee São Paulo. inkasta oo ay quruxdeedu ka dhigayso mid ku habboon dalxiiska iyo daawashada, haddana ma jirto cid booqan kartaa. sababtuna waa laamaha ammaanka ee dowladda Baraasiil oo aan ogolaansho dalxiis cidna u siin jasiiraddan. ciidanka badda ee Baraasiil ayaanan u ogolayn maraakiibta dalxiiska iyo doomaha kalluumaysiga inay ka soo agdhowaadaan agaarka jasiiraddan. sheekada jasiiraddu waxay soo bilaabatay horraantii qarnigii 20aad markii nin kalluumaystaha uu soo maray meel u dhow jasiiraddan. nasiibka xuni waa naxuuse. indhihiisu waxay qabteen geeda moosa oo si wanaagsan u bislaaday, ayna ka lulanayaan midho udgoon oo sugaya ciddii goosan lahayd. dabayshu sida ay u lulayso laamaha iyo mooska waxaad mooddaa inay u gacan haatinayaan kalluumaystaha miskiinka ah ee hungurigiisa hanan waayey. daqiiqada gudahood ayuu xeebta jasiiraddan ku caga dhigtay. gacanta ayuuna la raacay geedihii mooska ahaa. midho cunta ugu filan asaga iyo qoyskiisaba wuu helay oo doonta ayuu saartay. damacu waa cajiibe. wuxuu ku fikiray inuu xoogaa ku darsado si uu suuqa uga iibiyo. mar labaad ayuuna ku noqday geedihii. si lama filaan ah ayuu feedhaha uga dareemay xanuun aan loo adkaysan karin. geedka ayuuna ka soo dhacay. isla markiiba marada ayuu jidhkiisa ka fayday si uu u fiiriyo waxa soo gaadhay. waxa uu arkay dhaawac yar oo dhiig ka socdo. maskaxdiisa waxa ku soo dhacday in laan ka mida geedka ay mudday meeshan dhiigaysaa, laakiin xanuunka uu dareemaya muuna ahayn mid loo dulqaadan karo. dhimashadu inay u soo dhowdahay ayuuna dareemayey. meeshu waa jasiirad cidla ah, noola dhaqaaqaana kama muuqdo. waa ciirsila, gargaar iyo garab toonna aan lahayn. dhinaca doonta ayuuna u orday, mooskiina faraha ayuu ka qaaday. badeelka doonta ayuuna u dhaqaajiyay dhinaca São Paulo. nasiib xumo jidka ayuuna ku miirbeelay. hal maalin kadib koox kalluumaystaha ayaa arkay doon yar oo badda dusheeda hahaabaysa. cidna ma wadda oo keligeed ayay soconaysaa.
xaggeeda haddii ay soo aadeen waxay arkeen nin meyd ah oo doonta dhexdeeda goglan dhinaciisa waxa yaalla tuul moos ah. haddaba 20 sano kadib dhacdadan, dowladda Baraasiil waxay jasiiradda dhexdeeda ka dhistay minaarad dheer oo dusha sare ku leh guluubka socdaalka oo loogu talagalay in habeenkii la shido si aysan maraakiibtu ugu dhicin jasiiraddan. waxaan filayaa daawade inaad maqashay sheekada cajiibka ah ee Titanic iyo sida uu u degay kadib markii uu jiiday buur baraf ah uusan arkayn kabtanka waday markabka. waxa uu ahaa markabkii ugu weynaa maraakiibtu jirtay wakhtigiisa. waxaa laga sheegay ninkii sameeyey inuu yidhi ilaahay xataa ma dejin karo markabkan. subxaan allah. aan u soo laabanna mawduuceenna. dowladda Baraasiil hal nin oo waardiya ayay u soo dirtay jasiiraddan. xaaskiisa iyo ubadkiisa ayuu horay u soo watay, waxayna degeen dhismo yar oo dowladdu ugu tala gashay. shaqada keliya ee laga rabo waa inuu shido guluubkaas marka ay qorraxdu dhacdo. ninkan dowladdu waxay u diyaarisay wax walba uu u baahan karayay: cunto, daawo iyo hub uu isku ilaaliyo, intaba way u diyaarisay. haddaba maalmo kadib, kabtanka mid ka mid a maraakiibta jasiiraddan ka gudbaysa ayaa dareemay inaan la daarin guluubkii minaaradda, wuxuuna wargelin siiyey ilaalada xeebaha Baraasiil. maadaama ay ahayd warbixintii koowaad, cidna kama jawaabin baaqa ka yimid kabtankan. belo isma qarisee fariimo isdaba jooga ayaa ka yimid maraakiibta ka gudbaysa jasiiraddan, waxaana khasab noqotay in ciidan loo diro goobta si loo ogaado waxa dhacay. markii ay soo caga dhigteen jasiiradda, waxay indhahooda ku arkeen askariga, xaaskiisa iyo carruurtooda oo dhammaantood meyd ah. baadhitaan fudud ay ku sameeyeen jidhkooda ayay ku arkeen inay qaniya ku taallo dhammaantood. qoyskan waxay u dhinteen mid ka mid a sunaha ugu halista badan adduunka. 60 daqiiqo gudahood ayay suntani ku dili kartaa qofka ay gaadho jidhkiisa. waa sunta mid ka mid a masaska ugu caansan caalamka. waa mas dunida oo dhan kaga nool jasiiraddan oo keliya ah, waxaana lagu magacaabaa abeesada dahabiga ah. sidaas darteed, jasiiraddan waxaa loogu yeedhaa jasiiradda masaska, maadaama aysan jasiiraddan ku noolayn bini aadam ama noolo kale oo dili kara abeesadan. si xad dhaaf ay ugu tarantay bariga jasiiradda. khuburo daraasad ku samaysay ayaa sheegtay in jasiiraddan ay ku nool yihiin wax ka badan 4,000 oo mas. badka jasiiradda waxaa lagu qiyaasaa 43,000 oo mitir. marka la isku qaybiyo baaxadda jasiiradda iyo tirada masaska ku nool, waxay noo soo baxaysaa in 10 mitirba uu ku nool yahay mas khatar ah oo xambaarsan sun dilaa ah. haddii aad cagtaada dhigto gudaha jasiiraddan, afartaada dhinac waxa jooga 4 mas oo mid walba uu ku jiro wax ka yar 10 mitir. dhulka guudkiisa waad iska ilaalin kartaa bahalaha hoose ama masaska iyo abeesooyinka jooga, laakiin xisaabta ku darso dhirta ku taala dhinacyada inay saarnaan karaan masas ka badan kuwa dhulka jooga, sababtoo ah masaskani waxay u quutaan shimbiraha ku soo dega laamaha dhirta. jasiiraddan gudaheeda waxaa loo ogol yahay inay galaan 2 qolo oo keliya. qolada koowaad waa ciidamada ilaaliya xeebaha oo hal mar sanadkii bedela baytariyada shida guruubada socdaalka ee jasiiradda. qolada labaad waa cilmi baadhayaal daraasado ku sameeya masaska, kuwaas oo ogolaasho ka haysta dowladda Baraasiil, isla markaana tababar iyo khibrad dheeri ah u leh sidii ay isaga ilaalin lahaayeen masaskan. waxaa jira qolo saddexaad, waa ugaarsato si dhuumashaha u gala jasiiraddan, kuwaas oo sifo sharci darro ah kaga ganacsada masaska dahabiga ah oo uu halkii xabbo suuqyada adduunka ka jooga wax ka badan $40,000. ugaarsatadan waxay u dhexeeyaan 2 khatarood. khatarta koowaad waa dowladda oo qaban karta ayaga oo faldambiye tuuga ah gacanta kula jira, sababtoo ah ugaadha iyo duurjoogta dal kasta waa hanti qaran. in la xado oo shisheeye laga iibiyaana waa dembi weyn. khatarta labaadna waa inay u dhintaan qaniyada mid ka mid a masaska sunta badan ee ku nool jasiiraddan. xaqiiqada laga xumaado ayaa ah inay jiraan dad jecel inay helaan hanti aysan u dhiidin, waxayna rabaan inay si fudud u taajiraan xataa haddii ay khatar u gelinayaan naftooda. ugu dambayntii daawade, ma kula tahay in dalkeennu maalin uunu heli doono dowlad awood leh oo ilaalisa ugaadha, xayawaanka iyo deegaanka, gaar ahaan dhirta dhuxusha laga shido oo si ba'an loo xaalufiyey? daawade, waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii muuqaalkeenna maanta. fadlan haddii ay tahay markii kugu horraysay aad soo booqato kanaalkeenna, soo dhow oo sabskrayb saar. sidoo kale, haddii aad horey noola joogtay, muuqaalka like saar oo sii faafi si aynu u helno daawadayaal tiro badan. mahadsanid. lama galaay goobo dadkii galay aan dib loo arag ama naftooda ku waayay. qaybteeda 6. jasiiradda Remri. horraantii sannadka 1945, xilli uu gabagaba ku dhowaa dagaalweynihii labaad ee adduunka, ayay dowladda Ingiriisku go'aan ku gaartay inay jasiiradda Remri dib ugula soo wareegto Jabaan oo ka qabsatay bilowgii dagaalka. jasiiraddani waa mid weyn oo ogadeeduna siman tahay, taas oo ku habboon in saldhig militari looga dhigay ciidamada boqortooyada. sidoo kale waxay dhacdaa goob istiraatiiji ah oo ku beegan xeebaha gacanka Bangladesh ee loo yaqaano Bengal Bay. jasiiraddan waxaa gacanta ku haysay boqortooyada Ingiriiska, waxaase xukunkeeda la wareegtay dowladda Jabaan
intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka sannadkii 1942 ciidamada Ingiriisku waxay weerar ku qaadeen bariga jasiiraddan 19 Febraayo 1945 hadafkooduna waxa uu ahaa inay dib ula soo wareegaan jasiiraddan istiraatiijiga ah iyaga oo garabsanaya ciidamo Hindi ah ayay ku soo degeen xeebaha galbeed ee jasiiradda intaan ciidamada lagu rogin xeebta waxa lagu garaacay jasiiradda maraakiibta dagaalka oo la soo joojiyay meel aan sidaas uga fogeyn jasiiradda sidoo kale ciidamada cirka ayaan duqayn aan meel loo dayin ku gubay ciidda jasiiraddan waxay u muuqataa in ciidanka Jabaan ay waqti kooban isku dhiibi doonaan maadaama aysan iska caabin karin ciidamada huwanta ee ku soo duulay inkasta oo xisaabta dagaalku sidaas sheegaysay haddana ciidanka Jabaan marna kuma fikrinay si fudud isu dhiibaan waxa ayna baneeyeen gegida diyaaradaha ee ku dhoweyd xeebta waxayna dib ugu gurteen gudaha jasiiradda tirada ciidanku qiyaastii waa 1,000 askari suurtagal ayay ahayd in ciidamada weerarka ay soo afjaraan oo ay ka dabagalaan jasiiradda laakiin waxaa caqabad ku noqotay dabeecadda goobta ay miinsadeen ciidanka Jabaan waa dhul aan ka yaran 12 kiiloomitir waa dooxo dhoobi ah xilli walbana ay biyo fadhiyaan allana ku manaystay geedka loo yaqaano mangroofka oo ka qariyay ilayska qorraxda warka oo kooban waa kayn jiqa oo xidhan isla markaasna ay hara ka hoosayso waa dhufays ninka gala aan looga dabageli karin marka laga yimaado aragtida oo adag iyo in dhulka noocaan ahi badanaa hooy ama deegaan dabiici ah u yahay bahalo kala duwan oo aan dadka heshiis kala dhaxayn haddana waxaa jira xayawaan meesha ku nool kaas oo masaska dabqalloocyada iyo bahalo kasta oo niyadaada ku soo dhici kara aysan agtiisa waxba ka ahayn sida aynu soo sheegnay ciidamada weerarka ee Ingiriiska iyo Hindida ka koobnaa kuma dhiiran inay u bareeraan gelista meeshan waxa ayna direen dhowr doomood oo ka ilaaliya Jabaaniiska inay ka baxaan dhinaca kale ciidanka Jabaan ee ku sugnaa jasiiraddan waxa uu ku jiraa go'doon adag xaalkuna uma muuqdo mid isbeddel dhow yeelan doona sababtoo ah ciidamada Ingiriisku ma geli karaan kayntan adag halka ciidamada Jabaan aysan awoodin inay soo baxaan diyaarna aysan u ahayn inay isdhiibaan go'aankii ciidanka weerarka ahaa wuxuu noqday inay go'doon geliyaan ciidanka lana sugo inta ay soo dhiibayaan saacado kooban kadib qorraxda ayaa dhacday waqti badan intaan la joogin ciidankii Ingiriiska waxa dhagahooda qabsaday cabaad iyo qaylo ka yeedhaysa gudaha jasiiradda dhawaaq xooggan oo rasaas ayaa dhagahooda soo gaaray waxayna bilaabeen diyaar garow sababtoo ah waxay filayeen in Jabaaniisku ay weerar miidaamaha ku soo qaadi doonaan waxaa yaab noqotay sawaxanka iyo rasaasta ay maqlayaan oo aan xaggooda u soo socon ciidamada meesha ku dagaalamaya maxay ahaayeen tolow midda ka sii daran ayaa ahayd dhawaaqii rasaasta iyo cabaadkii askarta oo hal mar wada joogsaday ciidankii Ingiriiskuna waxa uu ku adkaystay go'aankii ahaa inaan gudaha loo gelin kaynta biyaha leh daawade adiguba qiyaaso xilli maalin ah ay geli waayeen sidee ayay goor habeena ku geli karaan shabakadda Guinness ee ururisa rikoorka adduunka waxay ku tilmaamtay meesha waxa ka dhacay inuu yahay xasuuqii ugu darnaa ee xayawaanku hal goob u geysto dad bini'aadan ah ogow weliba ma aha dad caadi ah waa ciidan hubaysan oo qaba tababar heer sare ah xayawaanka geystay xasuuqan waxaa lagu magacaabay xaaska biyaha dhanaan ama saltwater crocodiles culimada daraasaysa xayawaanaadka waxay ku tilmaameen xaaskan inuu yahay xayawaanka ugu weyn ee bogga ku socda miisaanka xayawaankan waxa uu kor u dhaafay 1 kiilo macnaha waa 1 tan dhererkiisuna waxa uu gaadhaa 7 mitir xawaarihiisu marka uu biyaha dhexdooda marayo wuxuu kor u dhaafaa 19 kiiloomitir saacadii xayawaankan weynaanta iyo xoogga isku darsaday waxa uu ugaarsan karaa libaaxa iyo shabeelka hataa wuxuu ugaarsan karaa libaax badeedka haddii uu gacantiisa soo galo jasiiradda Ramri ayayna ku nool yihiin tirada ugu badan ee xayawaankani si gaar ah aaga ay galeen ciidamada Jabaan ayay ku badan yihiin tiradoodu 10 ma aha ee waa boqolaal sida ay sheegeen khubradii falanqaysay dhacdadan yaxaaskani waxa uu dareemay dadka soo galay eegiisa maadaama ay jireen dad ku soo dhaawacmay dagaalka waxay u badan tahay in xayawaankani uu dhiigooda soo uriyay nasiib xumo hubkii rasaastii iyo saanadii ay wateen oo dhan waxba uma tarin kamana celin yaxaaskan weyn ay ku soo doonteen gurigiisa nin walba oo ka mid ah wuxuu maqlayay cabaadka saaxiibkiis ma helin fursad uu ku cararo xabadaha indhala'aanta ay u ridayeenna uma badbaadin naftooda haddii aad halkan soo gaadhay waxaa tahay xubin qaali ah oo ka mid ah haweenteena
qaybta hoose ee kommentiga noogu sheeg inaad soo gaadhay meeshan. waxaad xaq u leedahay inaad maqasho qisada dadka kooban ee ka badbaaday xasuuqan. haa, dhammaan ciidanka Jabaan kuma dhiman kaynta mangroofka. waxaa jirtay koox aad ugu dhoweyd dhinaca bannaanka oo heshay fursad ay kaga cararaan meesha halista ah. kadib markii ay garwaaqsadeen inaysan iska celin karin bahalaha soo weeraray, waxay bannaanka u soo baxeen iyagoo ordaya, gacmahana kor u taagaya, hubkiina iska tuuray. waxayna isku dhiibeen ciidankii Ingiriiska ee ay markii hore ka carareen. tirada ciidanka badbaaday waxaa lagu sheegaa 280 askari. arrintani waxay ka dhigan tahay in 220 askari ay casho macaan u noqdaan yaxaaska biyaha dhanaan ee loo yaqaano salt water crocodiles. daawade, weligaa ma ku fikirtay in 1,000 nin oo hubkooda wataa ay iska celi waayaan yaxaasiyo? mase sawiran kartaa in 220 nin oo hubkooda wataa ay bahala ku cuni karaan wax ka yar hal saac? ugu dambayntii, haddii aad ku fikirto maalin uun inaad booqdo jasiiradda Rimri, iska ilaali inaad gudaha uga shakaynta mangroofka ku eekow dhulka bannaan ee xeebta u dhow. daawade, waxaanu soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeenna maanta. fadlan haddii ay tahay markii kugu horraysay aad soo booqato kanaalka, soo dhow oo subscribe saar. sidoo kale, haddii aad horey nala joogtay, muuqaalka like saar oo sii sheer garee si uu gaadho asxaab qiimo badan. mahadsanid.